caawa bariga dhexe xiisadiisu waa kulushahay marka laga fiiriyo dhinaca diblomaasiyadda iyo waliba marka laga eego arrimaha dhaqdhaqaaqa militariga ah ee ka taagan dowladaha qaar ayaa isweydaarsanaya fariimo culus halka baqdin xoog leh laga qabo dagaalka mar kale in uu soo laabto haddaba caawa maxaa cusub maxaana idinkugu hayaa barnaamijka taxliilinta wararka caalamka iyo lafagurka diblomaasiyadda dowladda Turkiga iyo waliba Iran ayaa wada hadal hoose yeeshay oo laga qariyay inta badan warbaahinta waxyaabaha laga wada hadlay xilli maanta dagaal kale uu ka dhacay marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz wasiirka muraha dibadda Fidan ayaa loo xil saaray malaf gaara oo la xiriira dowladda Iran samarkaana ay iminka dhinacyadu sameynayaan wada xaajood dhinaca taleefanka dowladda Iran iyo Turkigu ma waxay ka wada hadlayaan sidii Mareykanka looga joojin lahaa duqeymaha uu kala kulmayo marinka Hormuz gaashaanbuurta naatana ma arrintaas ay u xil saartay dowladda Turkiga warbixin baan idinkaga hayaa oo barnaamijka ku lafaguraya khiyaarta ay nala socotay xogayaha muraha dibadda ee wadanka Mareykanka Marco Rubio ayaa ku dhawaaqay dowladda Iran in ay ka doonayaan nabad oo aanay ka doonayn colaad intiisa ay soo gudbiyeen ayaa waxa uu yiri jawaabta Iran waxa ay tahay waxa kaliya ay Mareykanka kor u dhowrayaan Tehran ayaa iminka go'aaminaysa jihada uu aadayo gobolka bariga dhexe cidda jawaabta sugaysana waa Trump col iyo nabad halka loo socdo dowladda Iran ayaa go'aamin doonta caawa oo indhaha lagu wada hayaa dowladda Turkiga ayaa la kulantay madaxweyne ku-xigeenka wadanka Iran Erdogan ayaa la kulmay Mansour bin Said ninka la yiraahdo Maxamed bin Said la dhashay xilli dowladda Iran maanta la garaacay mar kale isla markaana qasaare uu ka soo gaaray weeraradii ugu dambeeyay qorshahan muxuu noqon karaa wada hadalkooda dowladda Turkigana ma waxay ka dhigan tahay in la isku dhiibay oo Iran ay leedahay isku haleyntii reer galbeedka wax badani waa ka soo naasacada waayeen sidee wax u jiraan warban sidoo kale idinkaga hayaa iyo Turkiga oo iminka u muuqanaya inuu noqday cidda kaliya ee wax u sheegi karaysa dowladda Iran waxaan sidoo kale faaqidi doonaa intaan idin la joogo taliska dhexe ee militariga Mareykanka oo isna tafaasiil ka bixiya maanta kandaalihii Gruuska ahaa oo dowladda Iran ay ku garaaceen xiisadu waxaba ay ku dhawaatay inay faraha ka baxdo oo aan waxba la isku reeban qodobadaas ayaan kormeerayaa oo aan eegi doonaa inagoo dulmeer ku samayn doona wararka ugu dambeeya gobolka bariga dhexe sida ay hadda wax u socdaan jihada la filayo in la aado iyo waliba dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee taagan marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz waxa uu noqday mid dowladda Mareykanka xilligan dhibaatooyin weyn ay kala kulmayso marka la eego duqeymaha dhaqdhaqaaqa xooggan oo ay sameynayaan ciidamada kala duwan ee dowladda Iran iyo waliba istijaabinta kala duwan ee dhinacyada loolamaya ay hadda isu wajahayaan xalay Mareykanka ayaa gurguriyay awoodda Iran halka ay dhan tahay iyo waliba sida Tehran ay uga jawaabi karayso haddii dowladda Mareykanku ay duqeymo sameeyaan laakiin Tehran hadda waxaa muuqanaysa in aanay dagaalka wax ka sukeeya aanay doonayn oo ay rabto in la kala adkaado marka la joogo gobolka bariga dhexe haddii Mareykanka dagaalkan uu ku sii socdo waxa uu wajahayaa dhiigbax dhaqaale culays military iyo waliba kaydadkiisa gantaalaha iyo hubka oo sii maranaya iyadoo dowladaha waaweyn ee caalamka is hayaan sida Shiinaha iyo Ruushkuna uu u nuglaan karayo sida daraadeed Mareykanka ayaa hadda doonaya qaab uu kaga badbaado dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe jeer xitaa Israa'iil ay leedahay dagaalada Washington waxa la joogaa in ay ka gaabsanayso oo uusan Trump damacsanayn dagaaladu inay sii socdaan iyadoo xaalka halkaasi uu taagan yahay wasiirka muraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio waxa uu leeyahay waxaynu doonaynaa oo kaliya dowladda Tehran in ay noqonayso cidda aynu ka sugno nabadda Mareykanku ma filayo in ay noo go'aamin doonaan buu yiri dagaal waa Iran markay sheekadu halkaasi marayso waxa ay ka dhigan tahay in Tehran ay jaangooy doonto jihada gobolka bariga dhexe uu aadayo dagaal iyo nabad kii uu doonaba ha noqdo hase ahaatee Mujtaba Khamenei oo shalay uu sheegay in uu la wareegay talada kama dambaysta ah iyo waliba go'aan qaadashada arrimaha diblomaasiyadda
iyo meesha ugu dambaysa ee iska leh weedha nabadda iyo colaadda cidda waxa ay qaadanayso dowladda Tehran inuu isaga yahay sida uu ku waramay madaxweynaha wadankaasi Iran Mas'ud Pezeshkian isla markaana uu sii adkeeyay wasiirkiisa arrimaha dibadda Abbas Araghchi. dhinaca kale taliska ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa ku dhawaaqay in dowladda Iran maanta weeraradii ugu dambeeyay ka dhacay marinka Persia ee istiraatiijiga ah ee Hormuz inay u adeegsadeen gantaala cruiser oo ciidamada dowladdaasi Mareykanku ay ka hortageen. bayaan ka soo baxay taliska ayaa lagu yiri diyaarad Mareykan ah ayaa adeegsatay rasaas lagu garaacay baa la yiri dhuumaha qiiqa ee labada tangar taasi oo ka hortagaysa baa la yiri in ay gaaraan xeebaha wadanka Iran. labadan la garaacay oo dowladda Mareykanku ay tilmaameen inay garaaceen waa laba markab oo doonayay in ay jabiyaan baa la yiri go'doominta dowladda Iran saaran. hasaatee taasi markay dhacdo kadib waxa ay dowladda Iran bilowday in ay adeegsato diyaarada aan duuliye lahayn iyo waliba gantaala cruiser. isku dhacyadu waxa ay noqdeen kuwa cirka isku sii shareeray wixii markaasi ka dambeeyay. intaasi kadib wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran afhayeenkeeda Ismaaciil Baqaayi oo ah diblomaasi muddo dheer siyaasadda amuraha dibadda ku jira ayaa ku tilmaamay waxa dhacay xadgudub ka dhana sharciga caalamiga iyo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee Mareykanka. dhanka diblomaasiyadda Mareykanka ayaa wali sugaya jawaab ka imaanaysa dowladda Iran iyadoo xiisadu ay faraha ka sii baxayso oo ay daqiiqada ku xigta ay ku sii dhowdahay dagaalka in uu ballaarto uu ku sii fido deegaano kala duwan. xogayaha amuraha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa ku dhawaaqay in waxa kaliya oo ay sugayaan ay tahay in nabad la gaaro oo aysan u baahnayn dowladda Mareykanku in dagaaladu ay sii ballaartaan. soo jeedinta ay u gudbiyeen dowladda Islaamabad waa Pakistan ay hadda la taalo dhinaca wadanka Iran oo jawaab dhammaystiran laga sugayo. waa Mareykanka oo nabad ka toogaya dalka Iran marka aan fiirino xaaladda sida ay tahay. iyadoo xiisadu ay halkaasi taagan tahay dalal Carbeed ayaa qaadanaya hanaankii ay isu badbaadin lahaayeen dagaaladan socdana ay kaga waji dadba lahaayeen dhinaca wadanka Iran. xoga soo baxay ayaa sheegaya in dowladda Saudi Arabia ay mar kale diiday in Mareykanku ay isticmaalaan saldhigyada iyo hawada boqortooyada si ay uga howlgalaan marinka Hormuz. Iran ayaa dhaleeceysay si adkeynta waxa la yiri dhankeeda si adkeysan gacan ku haynta Hormuz iyadoo sheegtay in ay samaysay baa la yiri hay'ad maamusha maraakiibta ee halkaasi mara isla markaana bixinaya ruqsadaha iyo canshuurta socdaalkaba sida ay ku doodayaan. Mareykanka ayaa dagaalka uu ku qaaday dowladda Iran waxa ay ka dhigan tahay in Iran hadda ay ka faa'iideysanayso lahaanshiyaha milkiyadda marinka Hormuz taas oo uga sii dartay baa la yiri awoodii Trump oo gobolka bariga dhexe uu ku maamulayay. dhinaca Turkiga haddii aan eegana wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Turkiga Hakan Fidan ayaa si gaar ah u qaatay malafka wadanka Iran ee gaashaanbuurta NATO sida ay qorayaan caawa ila kala duwan oo warbaahineed. waxayse markii ugu horeysa Turkigu ay qariyeen xogo la isdhaafsaday oo dalka Iran ay la yeesheen caawa. telefishinada carabta qaarkood ayaa ku waramaya in Hakan Fidan iyo waliba dhigiisa wadanka Iran Abbas Araghchi ay caawa ku wada hadleen teleefanka xilli ay cirka isku shareertay arrinta Washington iyo Tehran. sida ay sheegayaan ila ka tirsan wasaaradda amuraha dibadda Turkiga labada wasiir ayaa diiradda saaray horumarka iyo xaaladda wada xaajoodka ee Iran iyo Mareykanka u dhaxeeya. Turkigu marnaba ma doonayo dagaalka Iran inuu sii faafo si aanay saameyn ugu yeelan qulqulka boqolaaldada oo haddii colaadu ay sii ballaarato wadankaasi ooda u jabsan doona. waxa uu dib u xasuusanayaa wixii dhacay markii dowladda Syria ay burburtay ee Turkiga uu martigeliyay malaayiin Syrian ah oo xitaaba qaar kamida shacabka wadanka Turkigu ay xilligaasi ka cabteen
noloshii iyo waliba maciishadu inay markaasi ku qaaliyowday. mar kale ayuu Turkigu ka baqayaa xiisadaasi koonfurta Aasiya ka taagan inay saameyntaasi sii yeelan karayso. wararka soo baxaya waxay leeyihiin arrintan waxa ay ka dambaysaa in Turkiga uu malafkan qaatay maadaama uu ka tirsan yahay gaashaanbuurta NATO. Mareykankana uu galay xaalad adag in la joogo waqtiga Washington ay si gaar ah diiradda u saari lahayd nabadda. cidda kaliya ee dhiraan dhiri karaysa marka Pakistan laga yimaadana ay Turkigu noqonayaan. dhinaca kale dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa u muuqata in ay u dulqaadan wayso duqeymaha uga imaanaya dowladda Iran, sidaas daraadeedna ay nabad ka raadisay Ankara iyadoo Recep Tayyip Erdogan ay hoosgeeyeen fayl kale oo ku saabsan sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa. telefishinka Al Arabiya ee wadanka boqortooyada Sacuudiga ayaa qoraya in maanta madaxweyne ku-xigeenka wadanka la yiraahdo isutaga Imaaraadka Carabta ahna dhaxal sugaha wadankaasi Mansour bin Zayed Al Nahyan uu la kulmay madaxweynaha wadankaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka socotay dowladda Turkiga. ujeedada ugu weyn waxay ahayd in xal laga gaaro colaadda isla markaana Iran ay joojiso duqeymaha ay ku hayso wadankaasi isutaga Imaaraadka Carabta. kulanka ayaa sidoo kale la saaray diiradda lagu saaray xiisadan sidii loo gabagabayn lahaa iyadoo Erdogan loo dhiibayo sidii badbaadada uu u baadigoobi lahaa. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sidoo kale ku dhawaaqday in lagu garaacay diyaarado drone, gantaalo cruise iyo waliba duqeymo xoogan ay la kulmeen. goordhow war ay baahiyeen wasaaradda difaaca ee isutaga Imaaraadka Carabtu waxay yiraahdeen jimcihii maanta nidaamyada difaaca cirka ee dowladda ayaa ku guuleystay inay qabtaan 2 gantaal oo ballistic ah iyo 3 diyaaradood oo nooca iswada ah kuwaasi oo la sheegay in ay ka yimaadeen dhinaca wadanka Iran. bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in 8 May 2026 weerarkii saddexaad ay la kulmayso dowladda isutaga Imaaraadka Carabta. weeraraduna ay ka dambeeyeen baa la yiri in ay qasaaro xoogan soo gaarsiiyaan wadankaasi. markii uu dagaalka bilowday bishii February 28 ee sanadkan duqeymaha dowladda Iran ay la kulantay waxaa lagu tilmaamay 550 gantaal oo ballistic ah, 29 gantaal oo cruise, 2263 diyaaradood oo iswada. sidoo kale waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen dad gaaraya baa la yiri 230 qof oo kala duwan oo ka soo kala jeeday wadamada Masar, Suudaan, Ethiopia, Philippines, Pakistan iyo Hindiya iyo dalal kale sida dowladda isutaga Imaaraadka Carabtu ay sii daayeen. qasaaraha dhimashadu wasaaradda difaaca waxay ku sheegtay intaasi marka laga soo tago in ay gaarayso baa la yiri 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada wadankaasi intii duqeymuhu ay dhacayeen. dowlado kala duwan ayaa caawa cambaareeyay duqeymahaasi ay la kulantay dowladda isutaga Imaaraadka, waxaana kamid ah dalka Kuwait iyo sidoo kale wadanka Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar ee ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. intaas ayaan ku eebiyay soo dhawaada.